عايزك صحوا أفكين لقى هذا يكون في عنتها عندي سلام محاوت هذا جيرك كده أنت ما حكوا جيرك هذا تابع جيرك يعني هو يسوي متدير ولا وهو كسر صراحة أنا كاد كان مقدر أنا حني قدام أنا وقدنا نيود magaalada muqdisho ma aragtay ummadna haysa ummadna dad haysa wallah qaab daradooda adeeg ay taabay hadda daywa itaabay hadda itaaba adiga daywa itaabani soma صحوا أفكين لقى هذا يكون في عنتها عندي سلام محاوت هذا جيرك كده أنت ما حكوا جيرك هذا تابع جيرك يعني هو يسوي متدير ولا وهو كسر صراحة أنا كاد كان مقدر أنا حني قدام أنا وقدنا نيود kulanti wanaagsan dhammaan daawadayaasheena ku nool daafaca caalamka mar kale isu soo noqdo wanaagsan muuqaal kale oo xiiso leh barta aad naga daawanaysaan waa janaalkiina dareenka nolosha TV kaas aad ka daalacataan waxyaabaha xasaasiga ah ee ka taagan baraha bulshada kuwaasi aan isleenahay armay muhiim tahay in daawadayaasheena loo iftiimiyo mar walba waxaan diyaar u nahay wix aadan ogeynina inaan idageysiino wixii aad ogtihiin aan idin xaqiijino marunba maswaabeen haddaba daawadayaana sharafta leh waa diyaata markii ugu horeysay aad janaalkeena soo booqato rukma janaalka walaal oo subscribe saaro furanaga baleelkaasi hadduu noqdo daawadaha ugu horreeya ee hela muuqaalada bartaan soo gelino daawadaheena sharafta leh mar walba waxaanay heegan iyo heelan u jirnaa sidii adiga aan kaa dhigi lahayn qof maqsuud ah haddaba daawada sidaad ka soo aragtay titleka ama thumbnailka barnaamijka aan maanta faaqidayno ayaa daawada wuxuu yahay barnaamij aad iyo aad u xiiso badan sidaa wada ogsoonnahay labadii habeen ugu dambeysay ee bishii ramadaan waxaa كمباك سمي أو صلاة برنامج كيوينا قراحو كاسو وجه كلا وطو كان دوان وجه يورات كبرتين الوسم يجري استوديو وين أستان كاسو إما كان الوسم يو غارد حديثة واي قفكي ما في لنا بابور حديثة أيا برانك الغاود دوبيا قفكي مرنبكم ما فكريو حدا بقى ركاني أو صارك يا هاي صحفي وين يفلى أيا وحو يا مد غاري قداشي سفري سنة أيو misna boodari ku sameynaya ama qofkii martida ahaa ee gaariga shirka hor saarnaa dhibaayo iyadoona booskii mulmiska ee barnaamijka ugu jirtay uu uga jiro ninka lagu magacaabo cabdi oo ah darawalka gaariga wado kaasi oo sida mulmiska ee barnaamijkii hore ay liinta ugu miireysay asna liima dhanaanta ugu miiray kaasoo labadoodii kala dhexgalaya isagoo marba isku dayay inuu qofkii yani laga xanaajinayo ku garab siiyo yufle oo ah qofka barnaamijka soo ka ah ayaa daawad wuxuu noqday barnaamij runtii ka xiiso badan barnaamijkii horeeto kana saameyn iyo views badan ayaa daawad wuxuu si habsami leh u socdaa barta YouTube-ka iyo Facebook-ka iyo kaybalka ay leedahaba shirkadda weyn ee Astaan taas shirkadaasi ah shirkad ku caanbaxday sameynta waxyaabaha entertainment-ga ee bulshada ay ku madadaalinayso ayaa lagu amaanayaa sida hagar la'aanta iyo shaqaalaha ay khibradda u leh sida loo madadaaliyo ee bulshada ay u qorteen aadna ka dareemi karto sida ay wax soo bandhigayaan ayaa daawada wuxuu noqday barnaamijkii qaraaxo barnaamij weji kala yeeshay haddaba caawa 7 fiidnimo waxaa barnaamijkaasi marti ku ah fanaanka weyn Dayax Dalnuurshe lagu casuumay barnaamijkii weyn ee qaraaxo sida wada ogsooneen sanadkii hore waa lagu casuumay barnaamijkan branki waa lagu sameeyay balse waxyaabaha qaar oo dhacdaraadii ayuu diiday in barnaamijkaas la soo daayo balse Astaan kama aysan quusanin oo mar kale ay ku sameeyeen brankigii qaraaxo haddaba daawadayaashu waxay isweydiinayaan sidoo noqday falcelinta uu sameeyay xidiga Dayax Dalnuurshe waayo kii sanadkan waxaa loo baajiyay branki lagu sameeyay waxaa loo baajiyay si xadka baxa ayuu xanaaqay waliba uu xitaa mikrofonkii fiiladaha ee kuleti ugu xirna uu jaray sida daraadeeda isagoo sumcadiisa ilaalinaya ama xanaaqiisa ka qaranaya bulshada ayuu wuxuu codsaday in barnaamijkaasi laga duubay in aan marnaba la soo dhigin waayo barnaamijka marka qofkii lagu sameeyo waxaa la weydiinayaa raalli ma ka tahay in la soo geliyo channelka ama YouTube-ka ama cable-ka ama Facebook page-kaba kadib markii shakhsiga uu ogolaado ayaa bulshada soo gudbinaya balse ma uusan ogolaanin
waxyaabo dhacdiraadooda oo isaga u arkayay inay xun yihiin in loo bandhigo bulshada. haddaba ugu dambeyn iminka way dhacday, balse daawadow su-aashaas weydiinaysa ayaa waxay tahay miyuu sameeyey sidii sanadka hore uu sameeyey xanaaq u badnaa ama xadkabaxa uu yani iscelin waayey xanaaq daraadiis miyuu sameeyey mise uu ka duwan yahay oo iminka xaaladda way degan tahay? haddaba su-aashaas aad kaga jawaabo maadaama aan nahay bahda dareenka nolosha TV. waxaan barnaamijka si hordhaca loo soo dhigaa qaybta website-ka ay leedahay shirkadda weyn Astaan TV, taasi oo aysan fududeen in shakhsiyaadka qaar ay ka daawadaan maadaama payment ama credit card lagu daawanayo, qarashaad lagu daawanayo si barnaamijka lacag badan looga sameeyo, misna aysan ahayn in sida YouTube-ka ama Facebook page-ka ama cable-ka si free-ka uga daawanayaan, balse website-ka waa lacag. sidaa daraaddeed waxaa jirta in si hordhac loo soo geliyo website-ka, balse maadaama aan nahay bahda dareenka nolosha TV aan payment credit card aan sameynay, barnaamijkan aan soo daawanay, waxyaabaha aan kasoo aragnana aan idiin barnaami doono qaarkood. balse haddii aan sheekadii dhammaystiran kaga sheekeeno barnaamijkii waa daawatay xiisiid ma lahanaya, laakiin qayb yara barasmidada ka tusayaa si barnaamijkii suugood kugu yeeshay misna aad 7 fiidnimo caawa marka soo dhigi doono aad ka daawataan janaalka ay leedahay Astaan ama cable-ka ama Facebook page-kaba. haddaba waxaa dhacaysa in xasan yufle oo ah daadiyaha barnaamijkani iyo darawalka gaariga ay sameynayaan in Dayax ay ugu tagayaan hoygiisa ugu nool yahay magaalada Muqdisho, deetana soo qaadayaan. balse sheekada waxaa bilaabaya darawalka oo leh gaariga markaad soo koraysa albaabka maxaad xoog ugu xirtay, taasi oo Dayax uu leeyahay albaabka xoog maan xirnay maxaa dhacay oo kaleeto. sheekadu halkaas ka bilaabanayso xasan yuflane uu leeyahay anaa maqlay albaabka xoog baa u xirtay, gaarigana waa jibi gaadhay. sida daraaddeedna botherinka ama dhibaatada ama foodada lagu sameynayo si lagu xanaajiyo darteeda Dayax Dalnuurshe ay meesha bilaabanayso, balse in badan oo dulqaad muujiyo ugu dambeyn uu iscelin kari weynaayo, taasi oo kaaga cad in xidig Dayax Dalnuurshe uusan kaftanka ama waxyaabaha foodada uusan ka helin. barnaamijkii hore qaraaxo sanadkii hore laga qabtana sidaa darteed loo baajiyay xanaaqiisa faraha badan. barnaamijkan ugu dambeyn uu ku dhawaad in la baajiyo, balse ugu dambeyn uu ogolaaday maadaama laba barnaamij aan la baajin karaynin. haddaba xidigani oo fanka kusoo biiray horaantii sanadii 2013 ayaa wuxuu qaaday heese dabacsan dadkuna ay aad u jecel yihiin, kana mid yahay xidigaha magaalada Muqdisho ay ku duusho marka loo eego dhankaasi fanaaniinta, kana mid ah modelistayaasha xaysiin dharka, sidoo kaleetana xaaska ay u dhaxdo farxiyada Boslady ku nool magaalada Muqdisho, qaasatan degmada waa bari xaafadeeda Filaberia. ayaa xidigan wuxuu yahay xidig ka mid ah xidigaha caasimadda marka la eego Muqdisho iyo ku faantaa fanaaniinteeda uu ka mid yahay role models-ka ay ku daydaan jiilka maanta fanka soo galaya ama dadka fanka jecel ba ay yihiin, uu yahay qof yani tusaale ah. haddaba xidigani ayaa barnaamijkan si habsami looga soo muuqday, ugu dambeyn barnaamijkii ku soo dhamaaday si habsami qurux badan leh. xasan yuflana uu yani ka yara xanaajiyey, inkastoo dulqaad marka la eego kii sanadkii hore oo iminka badnaa oo iminka dulqaad badan muujiyey, haddana barnaamijka muhiimadiisa waxa weeyaan in shakhsi lagu casuumo ugu yaraan laga xanaajiyo, xitaa hadduu xanaaqi waayo xasan yufle uu sameynayo in biyo uu ku firdhiyo, biyo caafiya uu ku firdhiyo, taasi oo qofkii u cadaynaysa in qofkani uu xumaan ama dagaal u socdo kadibna ka xanaajinaysa. weliba waxaan ogeen in malyumaanka gaarigoo socdo ay ka digi gaartay nafsadeeda halis u gaari gaartay. barnaamijkan marka laga soo tago xanaaqiisa ama halista uu keeni karo shakhsiyaadka caanka ah, haddana waa barnaamij lagu madadaalinayo dadka islaamka ah ee sooman maadaama aysan daawan karin filimaanta qaar, aysan daawan karin riwaayadaha qaar, aysan dhegeysan karin heesaha qaar, balse Astaan way fikirtay maadaama ay leeyihiin hal abuuro ama shaqaale hufan ay keenaan caqligan ah in qofkii ramadaankiisii loo ilaaliyo, isna la madadaaliyo, lagu qosla siiyo, waqti qurux badanna la siiyo, ayaa waxay ku amaanan yihiin kambanigani sida ay hagar la'aanta ay bulshada ay ula jaan qaadayaan mar walba in waxyaabaha update-ka ay ugu soo kordhinayaan dadweynaha. haddaba ugu dambeyn waxaa dhacday in barnaamijkaasi si habsami leh ku soo dhamaaday, xidigana laga codsaday in barnaamijkaasi la soo deyn doono balse uu ogolaaday. haddaba daawada waxaa isweydiinaysaa barnaamijka goormana soo geli doonaa? waxaa la soo geli doonaa caawa 7 fiidnimo, waxaa la soo dhigi doonaa qaybta YouTube-ka ee Astaan, sidoo kale qaybta Facebook page-ka, ama haddii uu cable-kooda kugu jiro waad ka daawan kartaa 7 fiidnimo. sidaa daraaddeed inaad subscribe sii saarataa ama like sii saarataa page-ka ama YouTube-ka. sidoo kale tan waa inaad YouTube-kan aad subscribe saarataa si waxyaabaha barsimidada aan ka soo daawano qaybta website-ka ee ugu xamaasada badan leh aan idinku soo gudbino. haddaba daawadayaana sharafta leh haddii ay tahay markii ugu horreysay aad janaalkeena soo booqato, rukuma janaalka walaal oo subscribe saaro, furana gambaleelka si aad u noqdo daawadaha ugu horreeya ee hela muuqaaladan bartaan soo gelino.
haddaba daawadeena sharafta leh intaan ku kulmi doona muuqaalka mid ka xiiso badan waxaan kuu rajaynayaa waqti qurux badan iyo caafimaad ramadaan kariim